shabakada warbaahinta Shabeelle warbaahin laga xigto meel walba Shabeelle Media Network bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan dhageystayaal qodobada wararka idaacadda Shabeelle deegaysana waxaa ka mid ah faahfaahin kala duwan oo ka soo baxay nin ajnabi ahaa oo looga shakiyay inuu waday waxyaabaha qarxo lagu qabtay garoonka Muqdisho mas'uulkii ugu horeeyay ee wasiir ahaa oo qirtay inuu lacaga musuqmaasuqay Mareykanka oo ka hadleen duqeyn ay ka fuliyeen gobolka Jubbada Hoose xiisad u dhaxaysa laba maleeshiya beeleed oo ka taagan deegaano hoostaga gobolka Shabeellada Dhexe dowladda Itoobiya oo sheegtay in ciidamadeeda ka qayb qaateen howlgal laga fuliyay deegaano ku dhow magaalada Kismaayo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed oo kulamo kala duwan ka wada magaalada Baydhabo ciidamada Kenya oo gacanta ku dhigay laba nin oo hubeysan loogana shakisan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab gudoomiyaha baarlamaanka Puntland oo ku dhawaaqay guddiga doorashada guddiyada baarlamaanka maamulka Jubbaland oo Kismaayo ku qabteen rag wada waxyaabaha maanka dooriya shir dhaqaalo loogu aruurinayo dalal ay ka mid tahay Soomaaliya oo ka furmay dalka Lubnaan kulamo looga hadlayo ammaanka qaybo ka mid ah gobolka Galgaduud oo lagu qabtay degmada Caabudwaaq wararka dibadda Shabeelle habeennimadana waxaa ka mid ah Pakistan oo Taliban ugu baaqday inay ka qayb galaan wadahadallada nabadeed ee dalka Afghanistan iyo Syria oo ka hortagta weerar Israa'iil ee ku qaada caasimadda dalkaasi waa habeenimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay 20-ka bisha January sanada 2019 warkaas oo dhan waxaa la diyaaraa wariyaha Xasan Kaafi Xuseen Axmed maasanid guleed Cumar Xasan bismillaahir rahmaanir rahiim habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warkii oo dhan faahfaahin kala duwan ayaa ka soo baxaya nin ajnabi ah oo looga shakisan yahay inuu waday walxaha qarxa oo lagu qabtay garoonka magaalada Muqdisho guleed Cumar Xasan ayaa warkani faahfaahinaya wararka naga soo gaaraya garoonka Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa ku waramay in saacadii la soo dhaafay nin ajnabi ah loo naga shakiyay inuu sido waxyaabaha qarxa in lagu qabtay gudaha garoonka ninkan ayaa la sheegay in lagu qabtay qaybta ugu dambeysay ee baarista garoonka xil uu doonayay inuu ka dhoofo halkaasi sidoo kale wararka ayaa intaas ku daraya in ninkaas uu ku qornaa falaadka diyaaradda Ethiopian Airlines iyadoona la soo warinayo in laga reebay duulimaadkaasi ciidamada amniga ayaa gacanta ku dhigay ninkaas iyagoona u soo gudbiyay qaybta dambi baarista CID ee magaalada Muqdisho wararka qaar ayaa sheegaya in ninkaas dhalasho ahaan uu ka soo jeedo dalka Koonfur Afrika inkastoo ilaa iminka si rasmi ah loo xaqiijin dhalashada halka uu ka soo jeedo ninkaasi ay gacanta ku dhigeen ciidamada ammaanka ma jirto ilaa haatan wax faahfaahin ah oo saraakiisha laamaha ammaanka ka bixiyeen ninkaas dowladda federaalka Soomaaliya ayaa wax badan ka bedeshay amniga garoonka Aadan Cadde si loola socdo dhaqdhaqaaqa dadka ka dhoofaya garoonka iyo kuwa ka soo degaya intaba mas'uulkii ugu horeeyay oo xil wasiir soo qabtay ayaa qirtay in uu lacaga musuqmaasuqay sida warkani uu ku faahfaahinayo wariyaha Maxamuud Cabdinaasir soo faysane maxamed jaamac abgaal Soomaaliya waa siyaasigii ugu horeeyay oo qirtay in uu hantida dadweynaha cunay muddadii uu ahaa wasiirkii hore ee boostada iyo isgaarsiinta Somaliland xukuumadii Axmed Siinlaayo
waraysi uu siiyey mid ka mida tiifiyada gaarka loo leeyahay ee soomaalida ayuu ku sheegay boobka hantidaasi in uu ka qaaday cudurro uu hadda la tacaalayo daweyntooda. maxamed jaamac abgaal waxa uu shaaciyey mas-uuliyad dambe in uusan qaadayn, sababtuna ay tahay in aysan isla ekayn xuquuqda uu qaadanayo sharci ahaan mas-uulka iyo baahidiisa shaqsiyeed, taasina ay ku qasbayso in uu gacan bidixeeyo hantida ummadda. sababtu waxa weeyaan waxba la kala qalqalin anigu waxna ma qasan garanaye war xanuuno badan oo ka qaaday tii hore ayaan dawadoodii la tacaalayaa. sababtu waxa weeyaan meesha kulka lagu xil wasiir badaysaa shaarka iyo lacagaha lagu xaq u leedahay dawladda ku qoran macal marka la isku daro xilka gulada 1500 iyo wax noocaas lacag noqonaysa dabeedna waxa lagu dhibiyaa miisaaniyad shay walba lacag walba ay ku qoran tahay shaqo gaar in lagu qabto 1500 xaaladda maanta ku jirno iyo dalku siduu yahay iyo baahida jirtay iyo طبعا ما كفاينس دولار راح توحي كله كاسو كلاي ماشى وحران دولار ما كسر تقي وابر حروسه دكتور بان تغيو دكتور غيري كليدو لا حاجه جرا يابا يو دبدنا سنتكي لبادنا وابر حروسه دكتور بان تغيو وحوري واحد قبطها ديكر با قبطها ديكر سنتكي استحد بشقي waa xanuunsan dhakhtarkii baa tagay dabadeedna wadnihii baa sidii u shaqeynay macna wax weeye wax aan ka badan mushaarkii wixii xaq aaduna lagu qoray ee ku shaqeynaysay yaa ku soo galay wax xaraantay war xaraantii hore ilaahay gacafiyo xanuunadii iyo dhibaatadii ka qaaday ayaan dawadoodii imika mashquul ku ahay ma doonayo ilaahay baa ka hoos galay xil dambe oo aan loo hayn wixii aad ku shaqeynayso kugu filan oo xaq aad yeelanayn diyaaru ma yihi halka shilin dambe oo aan iga soo galan meel dawlad shacabka iyo wadada masaakiinta waxooda adeero aanu diyaaru ma yihi inta horena ilaahay gacafiyo inta hore caafimaadkeedii baan. inkastoo ay dawladda hadda ka jirta Soomaaliya la dagaalamayso musuqmaasuqa, haddana Soomaaliya weli kama bixin liiska ugu hooseeya dalalka uu musuqu hareeyay. hadalka maxamed jaamac abgaal fariin ma u noqon doonaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed ilaa heer tuulo, degmo, heer gobol iyo kuwa ugu sarreeya qaranka. musuqu waa cudur dalalka lagu sheego ka curyaamiya dhan dhaqaale, siyaasad, amni iyo dhaqanba, waxaana shaki ku jirin Soomaaliya intaasi in ay kaga hooseyso caalamka intiisa kale. mahadsan soo faysane. Mareykanka ayaa ka hadlay duqeyn uu ka fuliyay gobolka Jubbada Hoose. taliska Mareykanka ee Africom ayaa war ka soo saaray duqeyntii shalay ka dhacday deegaanka Barsanguni ee gobolka Jubbada Hoose, halkaasi oo lagu dilay dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab kadib markii ay weerareen saldhig ciidamada dawladda iyo kuwa maamulka Jubbaland ay ku lahaayeen deegaankaasi. war qoraal oo ka soo baxay Mareykanka Africom ayaa lagu sheegay in duqeyntaasi ay uga jawaabayeen weerar lagu qaaday saldhigga ciidamada dawladda Soomaaliya ay halkaasi ku lahaayeen kaas oo ay soo qaadeen xarakada Al-Shabaab. Mareykanka ayaa sheegay in duqeyntaasi ay ku dileen 52 xubnood oo ka tirsan xarakada Al-Shabaab kadib markii ay gantaala la hereen gaari ay saarnaayeen dagaalyahanadaasi sida ay hadalka u dhigeen. sidoo kale Mareykanka ayaa sheegay inay sii wadi doonaan duqeymaha ka dhanka ururka Al-Shabaab, isla markaana dawladda Soomaaliya ay ka gacan siin doonaan duulanada ay ku wiiqayso awoodda xarakada Al-Shabaab. dhanka kale Al-Shabaab ayaa sheegtay in weerarkaasi ay ku qaadeen saldhig ciidamada dawladda ay ku lahaayeen deegaanka Barsanguni ee gobolka Jubbada Hoose, isla markaana ay ku dileen 41 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya. sidoo kalena ay ku furteen asaanad military oo ay lahaayeen ciidamada dawladda Soomaaliya sida ay hadalka u dhigeen. tallaabadani ayaa imaanaysa xilli dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Jubbaland uu dhawaantani sheegay in ay qaadayaan dagaal ka dhan ah xarakada Al-Shabaab oo ay uga saarayaan deegaanada ay gacanta ku hayaan Al-Shabaab ee maamulka Jubbaland. xiisad u dhaxaysa laba maleeshiyo beeleed ayaa ka taagan deegaano hoostaga gobolka Shabeellaha Dhexe, iyadoona barakac xoogan halkaasi uu ka socdo. Ismaaciil Axmed Maxamed Turki ayaa warkan inoo haya. cabsi xoogan oo ay muujinayaan dadka shacabka ah ayaa ka taagan inta u dhaxaysa deegaanada Ceel Baraf iyo Ceeldheero oo ka wada tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe.
walaaca shacabkaasi ayaa yimid kadib markii saasaan colaadeed iyo dhaqdhaqaaqyo ay samaynayaan laba maleeshiya beeleed oo isku hor fadhiya deegaanada ceel baraf iyo ceel dheere inta u dhexaysa barakac xoogan ayaa lasoo sheegayaa inay samaynayaan dadka shacabka ah kuwa oo ka baqdin qaba in ay waxyeello ka soo gaarto saamaynta haddii uu dagaalka qarxo labada maleeshiya beeleed ee xiisadda u dhexaysa ayaa isku haya aanooyin qabiil dhinac ka mid ah labada dhinac 5 qof ayaa laga dilay jimcihii lasoo dhaafay balse dhinaca 5 qof laga dilay ayaa xilligan waxa ay wadaan abaabul dagaal oo ay ku aarsanayaan mana jirto cid kala dhex gashay ilaa iyo haatan dowladda Ethiopia ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay ka qayb qaateen howlgal laga fuliyay deegaano ku dhow magaalada Kismaayo sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga Aadan Daahir Cabdi Aadan Diyeeshe milatariga dalka Ethiopia ayaa sheegay in ciidamadooda ku sugan Soomaaliya ay ka qayb qaateen howlgal ka dhan ah al-shabaab oo shalay ka dhacay Baarsanguuni oo ku yaala duleedka magaalada Kismaayo wasiirka gaashaandhigga Ethiopia ayaa xusay in howlgalkaasi ay iyaga iyo ciidamada dawladda Soomaaliya oo iskaashanaya ku dileen 60 dagaalyahan oo ka tirsan al-shabaab telefishinka qaranka ee dalka Ethiopia ayaa sheegay in xilligii howlgalka dhacayay ay al-shabaab doonayeen in weerar qorshaysan ay ka fuliyaan deegaanka Baarsanguuni wasiirka difaaca ee dalka Ethiopia ayaa hoos ka xariiqay in ciidamadooda qaybta ka ah howlgalka AMISOM ay dhawaan qaadayaan duulaan ka dhan al-shabaab Ethiopia ayaa waxa Soomaaliya ka joogay ilaa 4,000 oo askari oo qayb ka ah howlgalka Nabadgelyada Midowga Afrika ee AMISOM dhawaan ayaa waxa dagaalyahanada ka tirsan al-shabaab ay weerar qasaare geysay ku qaadeen kolonyo ka tirsan ciidamada Ethiopia oo marayay magaalada Buur-Hakaba ee gobolka Bay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa kulamo kala duwan la qaatay waxgaradka maamulka iyo odayaasha Koonfur Galbeed sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga Jaamac Maxamed Saalax Jaamac Kadiye gudoomiyaha golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo uu weheliyo madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa kulan gaar ah la qaatay guddi ka socda golaha odayaasha dhaqanka ee Koonfur Galbeed kulanka waxaa looga hadlay sidii loo wajihi lahaa howlaha dib u dhiska ee maamulka cusub ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed uu ka bilaabay deegaanada maamulkaasi odayaasha dhaqanka ayaa gudoomiyaha golaha shacabka iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed u gudbiyay xaaladda guud ee deegaanada iyo sida ay muhiim u tahay u heshiisiin dhab ah oo ay deegaanada maamulka uu ka hirgeliyo sidoo kale odayaasha dhaqanka waxay sheegeen in ay diyaar u yihiin sidii loo xalin lahaa tabashooyinka ay qabaan dadka deegaanka iyo la shaqaynta madaxweynaha cusub ee maamulkaasi dhinaca kale madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa odayaasha dhaqanka uga mahadceliyay sida ay uga go'an tahay horumarka iyo maamul wanaaga deegaanada isagoo ballan qaaday in maamulkiisa uu diyaar u yahay in uu la fadhiisto cid walba oo tabasho qabta si loo xaliyo deganaanshaha deegaankana looga wada shaqeeyo ugu dambeyn gudoomiyaha golaha shacabka ayaa u mahadceliyay odayaasha dhaqanka iyo guud ahaan bulshada deegaanada maamulka Koonfur Galbeed wuxuuna kula dardaarmay in wax walba laga hormariyo danta dadka deegaanka ayna la shaqeeyaan maamulka cusub ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed si dadka dawlad goboleedkan ay u helaan nabadgelyo waarta iyo maamul wanaagsan ciidamada Kenya ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen 2 nin oo hubeysan kuwaasi oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin xarakada al-shabaab ciidamada booliiska ee Kenya ayaa gacanta ku dhigay 2 nin oo hubeysan oo Soomaali ah kuwaasi oo doonayay inay gudaha u galaan dalka Kenya saraakiisha booliiska Kenya ayaa sheegay in raggani nin darawala uu ka soo qaaday deegaanka Hosugo ee gobolka Jubbada Hoose isla markaana ay ka codsadeen inuu geeyo deegaanka Haamey ee xadka dalalka Kenya iyo Soomaaliya waxa uu sheegay in markii halkaasi uu geeyay mar kale ay ka dalbadeen inuu geeyo deegaanka Xaradheere ee dhanka Kenya halkaas oo mar kale uu geeyay isla markaana ay ka dalbadeen inuu marsiiyo wada qardajeex taas oo shaki gelisay darawalkii waday gaarigaasi kaas oo aysan shaacin magaciisa ciidamada ammaanka ee dalkaasi Kenya sabab amni dartooda
booliiska kenya ayaa sheegay in darawalka uu si lama filaan ah labadaasi nin u keenay saldhig ay lahaayeen ciidamada booliiska kenya kuwaas oo magacyadooda ay ku kala sheegeen aadan xasan maxamed iyo ibraahim cali guuye booliiska ayaa waxaa intaasi ku dareen in raggaasi ay ku qabteen hub ay ka mid yihiin bustoolado iyo sidoo kale rasaas fara badan waxaana sidoo kale ay sheegeen in raggaasi ay qabteen oo ay wadeen budo cadda taas oo haatan ay shaybaarka u direen si baaritaano dheeraada loogu sameeyo sidoo kale waxa ay sheegeen in raggan ay uga shakisan yihiin inay ka tirsan yihiin xarakada al-shabaab ee ka dagaalanta dalalka kenya iyo soomaaliya tallaabadani ayaa imaanaysaa kadib markii dhowaantani ay al-shabaab weerar ku qaadeen hoteel nooca raaxada ah oo ku yaala magaalada nairobi ee xarunta dalkaasi kenya halkaasi oo ay ku dhinteen ku dhowaad ama in ka badan 20 qof gudoomiyaha baarlamaanka puntland ayaa ku dhawaaqay guddiga doorashada baarlamaanka maamulkaasi sida warkani uu ku faahfaahinayo wariyahayaga ismaaciil daacadda gudoomiyaha golaha wakiilada maamulka puntland cabdixakeen maxamed axmed dhoobo ayaa maanta magacaabay guddiga maamulaya doorashada guddiyada baarlamaanka maamulkaas xubnaha guddigan uu ku dhawaaqay gudoomiyaha ayaa waxa ay ka kooban yihiin 3 xildhibaan kuwaas oo kala ah xildhibaan cabdiraxmaan diiriye carab xildhibaan muuse xasan iyo xildhibaan cali axmed saalax waa sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka puntland iyo midda la yiraahdo cali axmed saalax saddexdan baa qabanaya insha allah doorashada marka waxaa rabaa iyaguna qabadan insha allah waa la xiriiraan habraac guddidaa qaybinaysa wixii laga rabo oo khayra musharaxiinta guddida ayaa si xubnaha guddiyada joogtada baarlamaanka puntland ayaa waxaa la filayaa in ay ka koobnaadaan min 10 xubnood oo leh 3 gudoomiye kuwaas oo lagu xuli doono qaab ku aadan waxqaybsiga gobolada puntland waxaana laga doorsugayaa qaabka ay u dhici doonto doorashada iyo soo xulista guddiyada baarlamaanka maamulka puntland mahadsan idaacada maamulka jubbaland ayaa kismaayo ku qabtay rag waday waxyaabaha maanka dooriya sida warkani uu ku faahfaahinayo wariyahayaga cabdulaahi cusmaan cadaani ciidamada ammaanka ee jubbaland ayaa saacadii lasoo dhaafay gacanta ku dhigay waxyaabaha maanka dooriya kadib howlgal ay ka sameeyeen gudaha magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose saraakiisha amniga ayaa 28 kilogram oo ah waxyaabaha maanka dooriya iminkii siday ku soo bandhigay xarunta booliska ee magaaladaasi sidoo kale booliska ayaa sheegay in la qabtay raggii maandooriyahaasi soo geliyey magaalada kismaayo ee xarunta ku-meel gaarka maamulka jubbaland kabtan cumar xujaale cabdi oo ah madaxa baarista ee gobolka jubbada hoose ayaa ka warbixiyay howlgalkaasi waxaana uu sheegay in maandooriyahan ay gacanta ku dhigeen laga keenay gudaha magaalada muqdisho sidoo kale waxay intaasi ku dareen ragga ay qabteen ay soo taagi doonaan maxkamad si loo horgeeyo sharciga waxaan halkan ku soo bandhigaynaa inagoo halkan waa taliska booliska ee dowlad goboleedka Jubbaland halkan waxaad ugu jeedaan xashiish aad u tiro badan oo ka yimid dhinaca Muqdisho oo la doonayay in la soo geliyo magaalada taasoo la doonayay in lagu haleeyo dhalinyarada iyo ciyaalka iskuulada ee magaalada wax ka baranaya iyo amniga magaalada in lagu khalkhalgeliyo la rabay waa 28 kiilo oo xashiish ah waxa ilaahay shalay u suurta geliyay oo 29 bisha ay ahayd sabtina ay ku baagneed inay gacanta ku soo dhigaan ciidanka booliska dowlad goboleedka Jubbaland hadda gacantan ku haynaa sidaad arkaysaan gaarigan ayaa lagu soo qaaday lagu doonayay in magaalada lagu soo geliyo xashiishka ninkii wadayna waa kan oo ninkan oo darawal ka ah gaariga ayaa wada xashiishka waa 28 gaarigii iyo ninkii waday iyo asagiiba waan isku haynaa halkii uu ku socday iyo meeshii lagu wadayna ayadana waan haylnay ayadana waxaan ku haynaa dabagal baan ugu jirnaa in aan gacanta ku soo dhigno ninkaasi in aan ku maxkamadeyno
oon sharciga ku horgeyno alaabtaas uu doonayay in uu amniga ku qalqalgeliyo ee uu soo geliyay magaalada uu doonayay inuu macnaha ma garanaysaa in soo geliyo waad arkaysaan indhihina in macalina gaarigii lagu keenay iyo cidii baashan in macnaha ma garatay keenaysay waxaan information ka helnay markuu xamar ka soo baxay xashiishkan intaan waan sugaynay waxa uu soo dhaxmaray shabaab aanu malaynayna ayaga naftirkooda inay canshuur ka soo qaadeen oo ay soo fasaxeen marka waka xashiishkii haddana gacantan ku haynaa ammaanka Kismaayo ayaa maalmihii la soo dhaafay si aad ah loo adkeeyay iyadoona ciidamada amnigu ay howlgallo ka wadeen xaafado ka tirsan magaaladaasi shir dhaqaale loogu aruurinayo dalal ay ka mid tahay Soomaaliya ayaa lagu qabanayaa dalka Lubnaan aadan daahir cabdi aadan diyeesha ayaa warkani mar kale inoo haya shirkan oo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah madaxda ka socota ururka jaamacadda carabta ayaa ka furmay magaalada Beirut ee caasimadda dalka Lubnaan waxaana diiradda lagu saarayay sidii dhaqaale loogu ururin lahaa dalalka ay dagaalada la dageen ee jaamacadda carabta sida uu sheegay xogeyaha guud ee ururkaasi shirka ayaa la filayaa in si gaar ah diiradda loogu saaro dalalka Syria, Soomaaliya iyo Yemen oo ka mid ah dalalka ugu daran ee ay ragaadiyeen colaadaha iyo dagaalada sokeeye Ahmed Abulqayd xogeyaha guud ee ururka jaamacadda carabta ayaa xusay in dhaqaalaha ka soo baxa dalalka jaamacadda carabta lagu gargaari doono dadka ay saameynta ku yeesheen colaadaha ka tagan saddexdaas dal waxaana intaa ku daray in dhaqaalahaasi qayb ka mid ah loo adeegsan doono dib u dhiska dalalkaasi oo si weyn ugu burburay dagaalada halkaasi ka socda kulamo looga hadlayo ammaanka qaybo ka mid ah gobolka Galgaduud ayaa lagu qabtay magaalada Caabudwaaqa sida warkani uu noogu soo diray wariyahayaga Cali Xasan Barqadle Cali Gaab kadib kulamo xoogan oo looga hadlaya ammaanka iyo xasiloonida waqooyiga gobolka Galgaduud oo odayaasha dhaqanka degmada Caabudwaaqa waqooyiga gobolka Galgaduud ay ku yeesheen magaalada Caabudwaaqa iyo odayaasha dhaqanku waxay ku baaqeen in la xoojiyo nabadgelyada deegaanada waqooyiga gobolka Galgaduud gaar ahaan degmada Caabudwaaqa odayaasha dhaqanka degmada Caabudwaaqa ayaa sheegay in tan iyo booqashadii madaxweyne Farmaajo oo muddo hal sano ay ka soo wareegtay uu ku yimid magaalada Caabudwaaqa oo ka dhacay isbedel dhanka nabadgelyada isla markaasna iminka shacabka ay ugu baaqayaan in lagu laabo dhibaatooyinkii uu dalku soo maray gaar ahaan waqooyiga gobolka Galgaduud ee laga wada shaqeeyo amniga iyo xasiloonida deegaanka nabado Yuusuf Shira Warsame oo ka mid ah odayaasha dhaqanka degmada Caabudwaaqa oo warbaahinta la hadlay ayaa baaqaan u diray shacabka degmada Caabudwaaqa iyo deegaanada ku teedsan waqooyiga Galgaduud ee dadka ku nool walaalayaal hal sano ayaa ka soo wareegtay markii madaxweynaha federaalka ee ummadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii uu yimid gobolada tan iyo haddeer oo aan hadlahayo maanta waxaa ka soo wareegtay hal sano markii uu inoo yimid sidii aan ahayn waad garanaysaan isu sheegi mayno ilaa shalay ilaa intii madaxweynuhu yimid intii u dhaxaysay ilaahay wuxuu ina siiyey nasteex ehelnimo walaalnimo xabad la'aan qof walba meeshuu doono uu marahayo sidii la arki jiray nabadgelyo taam ah ilaahay ina siiyey waxaa ilaa shalay noo muuqanaysay xabado iyo wax dhagahanaga iyo ilmahayaga iyo magaalooyinkanagu ay ka daaheen oo ilaahay naga wareejiyey waxaan baaq ugu dirahayaa ummadaha beeraha sare hadalkan odayaasha dhaqanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa ku soo aadayay xilli ay hal sano jirsatay nabadgelyada degmada Caabudwaaqa iyo markuu booqashada ku yimid madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markaas oo la sameeyay guddiyo ka shaqeeya amniga degmada Caabudwaaqa kuwaasoo la sheegay in inta badan ku guuleysteen ammaanka degmada Caabudwaaqa Cali Xasan Barqadle Cali Gaab warbaahinta Shabeelle Galmudug halka warkaasi aad kala socotaan waa idaacadda Shabeelle haatan akhbaaraadka dibadda Syria ayaa ka hortagtay weerar Israa'iil ay ku qaaday caasimadda dalkaasi dowladda Syria ayaa sheegtay in ciidamadeeda difaaca cirka ay ka hortageen gantaalo diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay ku rideen magaalada Dimashq ee xarunta dalkaasi warbaahinta dowladda Syria ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay soo rideen gantaalo ayna ku soo rideen garoonka diyaaradaha ee magaalada Dimashq halkaasi oo uu dhismo ay ka wado dowladda Ruushka dhanka kale afhayeen u hadlay ciidamada Israa'iil ayaa diiday inuu ka hadlo warka ka soo baxay dowladda Syria oo ku aadan in laga hortagay weerar ay ku qaaday magaalada Dimashq
sidoo kale wararka ayaa sheegaya in habka difaaca ee gantaalaha israa'iil ay dhulka soo dhigeen madaafiic lagu soo riday qaybo ka mida waqooyiga buuraleyda golan heights ee xadka lubnaan. dowladda ruushka ayaa uga digtay israa'iil inay sii wado weerarada iyo duqaymaha ay ku qaadayso dalkaasi syriya, gaar ahaan kuwa ay ku beegsanayso garoonka diyaaradaha ee magaalada dimashq. xukuumadda moscow ayaa ku eedeysay israa'iil in ay doonayso inay xirto garoonka oo hadda dib u dayactir lagu sameeyey, islamarkaana ay ka bilowdeen duulimaadyo caalamiya. warkii habeenood dhegaystayaal kala socoteen idaacadda shabeelle muqdisho soomaaliya waa naga inta. cidda warka iyagoo uu sheego isagoo maqal qoraal iyo sawirro intaba iskugu jira waxa ay ka daalacan kartaa barta aynu internetka ku leenahay ee ah radio shabeelle.com.